السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada projecting some chart oo aan ku sameynay application marka oo chatina oo marka oo sheekaysi loo sameyn karo marka waxaan bilaabaynaa inaan setup gareyno application keeni wax walba u baahannahay inaan sameyno qaybta marka installation ka wax walba aan u baahannahay inaan soo dejino inaan sameyno okay marka waxaan sameynaysaa folder soo furo waxaa leedahay marka control J waxaa muhiim ah inaad taqaanin reactive basics ka hadda waxaan marayna waa qaybta advanced projects ka ayaan maraynaa so course-ka haddii aad booqatid website-keena hijab.com waxaa ka helaysaa marka course-ka reactive waa free boqolkiiba boqol sidoo kale qaybta YouTube-kana beginner projects intermediate projects project-yana waa project advanced ah okay qaybta marka waxaad ku qoraysaa npm create with at latest kadib space dot oo that means waxaa waaye isla folder-kan ayay ugu sameynaysaa ayaa ka wadaa dabcan kadib waxaa leedahay marka inta wuxuu sameynaa marka magaca ku dhihi doonaa so isla magacaas haddaa rabtid inaad qaadid waxaa dhehaysaa oo keliya tab kadib enter aa leedahay kadib waxaad dooranaysaa qaybta reactiga kadib waxaad dooranaysaa javascript qaybtan kadib waxaa leedahay marka npm install so hadda waxaa la dhamaystiray in la dejiyo node moduleska marka waxaan soo dejinaynaa tailwind css oo aan u isticmaalaynaa qaybta markaasi installinka marka hore command ugu horeeya ayaa qori doonta insha Allah npm install -d tailwind css at latest 3 so at 3 marka command yaas qor kadib waxaa leedahay enter then waxaa qoraynaa command kale oo aan markaasi kusoo waxaynayno in aan markaasi ku sameyno filekii marka tailwind css.config.json ka ahaa then marka filekaas ayaa la sameyn doonaa npm tailwind css init-b marka fileka waa kana fileka waxaa la bedeli jiray qaybta marka content waxaa bedelaysaa marka content waxaa u bedelaysaa marka intaana ku bedelaysaa marka waxaa imaanaysaa sida caadiga waxaan gudaha u galaynaa projectkeena waxaa imaanaysaa qaybta css-ka si tailwind css kugu shaqeeyo waxaa imaanaysaa index.css waxaa ku best gareynaysaa saddexda sar dabcan linkiyada dhammaan sida tailwind css loo soo dejiyo linkiis waa idin soo raacsiinaa isoo kale vidka maadaama hore usoo sameynay waa raaraaci karta marka si aad markaasi qaybtaas copy paste ugu soo dhaahid okay si fudud dabcan oo aad markaasi waqti badan aadan ugu khasaarin okay packages ahaan waxaan u baahannahay dhowr package aan u baahannahay so load y ila fiir insha Allah waa idin tusayaa right now okay intaana u baahannahay packages ahaan waxaan u baahannahay uuid SAS, React Type Animation, React Router DOM, React Host Firebase. So UUID waxaa noo sameynaa ID gaara mid walba SAS-ka marka waxaa weyn oo isticmaalaynaa style ahaan sidoo kale tailwind css noo isticmaalaynaa React Type Animation waxaa noo sameynaa animationkii homepage-ka ka aragteen marka qoraalka animationka ah noo sameynaa React Router DOM-kana waxaa noo sameynaa dabcan pages kala duwan waa soo qaateen React Host-na waa messages already waa soo qaateen Firebase-kana waa midkaa isticmaalayno si aanu markaa u sameyno authentication-ka user-ka in markaa isdiiwaan geliyo ama login uu soo dhaho iyo sidoo kale chatting-ka ama wada sheekaysiga qaybta markaa aan ku sameynayno as a backend server ahaan ha u isticmaalayno service ahaan ha u isticmaalayno weeyaan marka waxaan leenahay enter kadib dhammaan packages-kan ayaa la dejin doonaa marka adina insha Allah intaanu kala sameey soo deji packages-ka dhan okay haddaan fiirino qaybta public-ga waxa kaliya u baahannahay waa logada u baahannahay soo logada haddaa fiirsaan if you look at it waxaa isticmaalay logadan iyo sidoo kale logadan isticmaalay waa mid cadaan ah iyo sidoo kale mid aan labadaas markaa soo qaadanaynaa right now okay wara wax soo qaadaya sawirka qaybta sare saaran oo aad u taqaaniin dabcan 5 icon-ka waxaa dhihi doonaa copy so insha Allah adii sawiranta dhammaan waa helaysaan so don't worry so halkan kusoo bes gareena waxaa dhihi doonaa qaybta waxaan u bixin doonaa magacaana u baxsan doonaa 5 icon kadib navbar logada soo qaadanaynaa waa logada qaybta navbar ka taalo soo qaybtaas logadaana waa soo qaadanaynaa right now soo dhihi doonaa marka copy halkaan kusoo bes gareyn doonaa adina marka filekan kale markaa heshid filekan ka baxsan doontaa oo ka best gareysan doonaa saddexdooda hal mar okay so waxaa ugu dambeeya qaybta footer-ka aan isticmaalayno mid cadaan ah waxaa ku qoranaa si ahaan meeshaan waxaa ku qoran logo white I'll say copy logo white okay so saddexdaas isticmaalaynaa logada so logada waa badan yihiin logooyinka qaabka nooca aad isticmaal dabcan footer logo
footer un baa sii qori doonaa طبعا كان wax sii qori doona navbar okay maadaama had saddexdaas bis aan soo qaadanayo okay that's it waxaa jira marka images badan oo sidoo kale u baahannahay so imageskaas sameynaa folder dhan ayuu ku wada jiraa so waxaa dhihi doona marka copy public ay ku basti jareen doona marka images waa kuwaana okay so laakiin folder kale ayuu ku jiraa oo img asaa ujeedaan so folderkaas ku sii keydsanaya okay src da markii la joogo abka dabcan waxaa la sameyn jiray in inta la shadaleeyo rfce adena let's see enter leh country space ade sorry then uu soo load gareena so xojo yar culeys ah jira that's why uusan soo qoynayn okay dib malahan harna component inuu noo jiro gareeyo so caadi u sameyn karnaa balse waa yara suudana culeys jiro waa iska caadi okay what else we need waxa waaye qaybtan waxaan sameynaynaa folderkii ahaa componentida maadaama hadda chatting application aan sameynayo oo laba qayb ugu waaweynaa jirto laba qayb qaybtan waa qaybta homeka iyo qaybta chattingka caadiga ah qaybtan gudaha marka componentiyo waa kuwaan kana componentiyo koobaya marka laba folder oo si kala sameysana waxaa dhihi doonaa home iyo waxaa dhihi doonaa componenti ku dhufo folderkaas kadib iyo some chat okay labada folder oo kala sameysana adi hal folder waa wada geli kartaa balse as I thought waxa waaye qaabkan ay yara fiican waxaan ku yartaa in laba folder componenti si yeeshaan ayaa markaasi la qurux badnaata okay what else u baahannahay qaybta marka src da ku soo darsanayna kan hadda waa sida leedahay assetska I don't need that waxaan ku soo darsanayaa pages folder waan gelin doona pages dhan so marka hadda componenti aan yara diyaarino kadib waxaan dhihi doonaa enter kadib waxaan tijaabinayaa tailwindska waxaan dhihi doonaa pg red let's see 500 so dhammaan packages way ii soo dadeen insha allah waxaan dhihi doonaa hadeertaan npm rendef okay localhost waa kana saa ujeedaan dabcan wuu deploy garaysan yahay already okay it's very good waa kana marka uu inoo soo baxay waxaa imaanaynaa indexeska waxaan ku qoraynaa dabcan qaybtan some charts waxaan leenahay marka some charts waxaan filaa some chart magac fiican inuu yahay okay some charts it's becoming capital yeah sorry marka titleka waxaa ka dhignay let me see okay real time chatting aan dhahay yeah I don't remember hadda arkay real time chatting okay good so qaybta marka waa bedeleynaa waxaan ku bedeleynaa 5icon.png very good intaas ku bedeleynaa waxaan ku saaray intaasoo keliya waa wax kale uma baanin right now okay so okay qaybta abka insha allah arki doonaa sida loo sameynayo so componentiyada marka aan u gudubno waxaan ku bilaabeynaa marka hore in aan sameyno qaybta home page-kan in aan sameyno ku bilaabeynaa then pageska kala duwan about content page-ka login logout-ka so marka home page-ka isla aragno marka let's see the home page right now okay if you talk about the home page navbar in hero session-kan qaybta marka featureska qaybtan oo markaasi email marketing u isticmaaleyno loo yaqaano marka newsletterka qaybta footerka intaas weeyaan okay let's come to home folderkaasi maw folderka marka imaadid a lot of community meesha u baahannahay marka waxaan ku bilaabnaa community hore waxaan dhahnay navbar the next one will gonna be footer saa yara xasuusin kartid the other one marka hero session ku noqon doonaa sida caadiga hero.css the other one wuxuu noqon doonaa newsletterka waxaan dhihi doonaa newsletter.css the next one will gonna be featureska qayb featureska so other components hadaa u baahana iyadana waa arkeynaa balse intaan ayaa markaasi as you can see aan qoraynaa soma okay mid walba sii diyaari waxaan dhehnaa rfce the other one is waxaan dhehnaa rfce da xitaa ina copystaas yara waa xitaa inteeraa qoraya kasii yara cajisaya so like iyadoo shortcut tahay haddana sii copyinaya so you have to save your time as much as possible okay waqtigaasaa u save garay kartid yani waxyaala qaar
asamey jirtid waxaa laga yaabaa aan sameynoonin soo sameey haddaad kubiilayn waa qorqor la okay aadaasid qaybtan kale waa gaarayna laakiin home page kan isla diyaarino insha allah casharta waxaan ka bilaabnaa navbarka ilaa qaybta ugu hooseysa ayaan geenaynaa okay home page kan oo dhan ayaa isla diyaarinaynaa then waxaan isla diyaarinaynaa pageska then gudaha uu sii galaynaa waa design garaynaynaa then waxaa weeyaan waxaan sameynaynaa authenticationka then waxaan sameynaynaa chattingka insha allah projectkan haddii aad bilowdid la soco ilaa dhammaadka mar walba haddaa u baahan tahay caawinaad waxay ugu soo qori jirtaa qayb commentiga su-aasha qabtid ama si toosa waxaad nagala soo xiriiri jirtaa dabcan whatsappkeena noo saaran profileskeena kala duwan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu